السلام عليكم كسو دوادا maanta iyo video cusub videogan waxaan rabaa inaan sharaxaad guud ka bixiyo gamekan FIFA Mobile sidoo kale gamekan ma jirto Soomaali badan oo dheesha laakiin waxaan rabaa hadda inaan yani xoogaa falanqeyno oo aan wax idinka tustuso sida loo soo degsado iyo sida loo isticmaalay iyo waxyaabahaas inaan tuso doono insha Allah videogan gudihiisa gamekan horta magaciisa waa FIFA Soccer ama FIFA Mobile labada waa lagu wacaa laakiin adigoo isku mid oo kale marka hadii aad rabto gameeka inaad la soo degto ugu horeyn horta shuruudihiisa ma badna oo yani waxa weeye RAM 4 iyo RAM 2 iyo kugu xirayo mobile walba aad wadato ku dheli kartaa sidoo kale gameeka wuxuu faa'iido u yahay dadka aan yani haysan dadka e-football ku shaqeeyo waayo kale way ciyaari karaan waxa kale oo gamekan uu leeyahay yani xitaa uu la tartami kara e-football-ka oo yani kamaliito ama uu ka sareeyo ayaan dhigi karnaa hadda marka waxaan rabaa inaan idin sheego sida loo soo degsado sidoo kale gameeka waxaan rabaa inaan xoogaa videoga aan ka soo duuba iyo aan idin tuso hadda yani sidan waxa weeye marka ciyaarta gasho kale ciyaar badan oo leeyahay laakiin hadda ciyaarta aan soo galay aniga online waaye dib ma laan u soo noqon doonaa laakiin hadda sida loo soo dejiyo aan tusaya hadii aad rabto marka inaad la soo degto waxaad sameynaysaa ugu horeyn Play Store-kaaga fur hadda sida caadiga Play Store-ka hadii aan ku qorno FIFA Mobile FIFA Mobile wax ka siko ama FIFA Soccer oo isku mid kale FIFA Mobile marka ku qorto waa dareemi kartaa yani inaan wax application uusan soo bixin oo FIFA ah marka si aad ula soo degto FIFA waxaad u baahan tahay marka koowaad horta Play Store-ka ku laabo marka koowaad waxa weeye waxa soo degsan doontaa application-ka uu magaciisa yahay Kuwait VPN QUICK VPN aad ku qoray doontaa Kuwait VPN baadama aad application-ka la soo degto hadda aniga ima degsan laakiin hadda download dhahana application-kan wuxuu ka caawinaa macnaha inaad Play Store-ka aad been u sheegto oo aad la soo degto FIFA oo yani wadanka aadan joogin aad sirto waa ogahay dad badan ay hadda waxay ku fikirayaan inay Chrome-ka kala soo degaan laakiin kaas virus uu leeyahay kadib waxaad sameynaysaa Play Store-ka ku dhig markaad la soo degsato app information aad gelaysaa kadib waxaad leedahay application-ka Play Store-ka clear data aad leedahay clear all data okay aad leedahay baadama aad intaas sameeysa ka soo bax waxaad ku laabanaysaa Kuwait VPN-ka US East Ohio ayaad ku xiranaysaa waa serverka labaad markaad ku xirtay kadib waxaad sameynaysaa Play Store-ka u laabo hadda Play Store-ka waxaad u sheegaysaa yani wuxuu iska dhaadhicinayaa inaad America joogto ama US East aad joogto US East Ohio markaad ku xirato aad u laabato kadib waxaad sameynaysaa halka search-ka waxaad ku qoraysaa FIFA Mobile hadda waad u jeeday markii aan FIFA Mobile ku qorno wuxuu inoo soo saaray haddana aan aragno waa ka FIFA Soccer inoo soo saaray waxa saaray sawirka Mbappe waana la soo degi doontaa hadii aad rabto sidoo kale kanalka la video like sar kanalkana ku soo biirsi aad la socoto waana ku maatantaa daawashada. Well, Derek, we can talk about coaches and their methods, but it's now down to the players. Which ones are going to stand out? Who will affect the game? And who will have the greater desire? It should be a cracking game, though. Chance here. A truly magnificent start. An early goal in the game. Just what they were hoping to produce. Well, as you can see, he hits this with so much power, but just look at the follow-through. So athletic. That's a dynamic strike. Well, back underway here. How will Spurs reply to that setback? Alexander Meyer. Pedri. Terrier. Kolo Muani. Will he find the net? And the keeper taking it cleanly. It's with Martin Terrier. Well, a foul, but the advantage with Real Madrid. Face up. Moving forward effectively. Here he comes. Oh, a vital interception. Terrier. Sandro Tonali. Terrier. Well, the threat was very real. Marvellous defending. Man on. Mikel Merino. Man coming, man coming. And a Tottenham Hotspur free kick coming up. It's with Mikel Merino.
Grimaldo with it. Terrier. Terrier. Well, they might be trailing, but hope in the form of a corner. And it nestles in the back of the net. A goal for Tottenham Hotspur, who now are on level terms. Well, here we can see it again. Just how well Trippier does to get that cross into such a good area. And it's a comfortable finish in the end, which is made to look so easy. It's a lovely goal. Look up, look up. So in business once more, on the back of that very important equaliser. 1-1. Man on, man on, man on. Man on, man on, man on. And he clears the danger. And it's going to run through to the keeper here. Just 1 minute of stoppage time, say the officials. Kolo Muani. And so it is, the first half story has been written. Well, they've got things going again here, and I wonder what kind of second half we have in store for us. Stay tight. Stay tight. Yeah, Going yeah. well. Just the challenge that was required. Iago Aspas. Man Grimaldo. coming. Terrier. Square. Yeah, I'll take it. Keep it up. Oh. Firing it in. And the keeper throws himself at the ball. And he gobbles up the second chance. Disappointment for the keeper. No wonder he's asking questions of his defence.